مشرح برخد جامع باتون وكمدها مشرحين توشرحان قلها وكيلة سوماليلاند doorashooyinkii Somaliland ka qabsoomay koob iyo 30 bishii shanaad ee soo dhaafnay ayaa maanta isagoo la hadlaya TV-ga Universal waxa uu ka hadlay dareenkiisa doorashadaasi uu galay maadaama uu ahaa musharaxii hadalhayntiisu ay saameynta yeelatay cid kasta oo runtii qayb ka ahayd hawshan aanu galnay in horumarka maanta ifaaladiisu muuqato laga gaarana way mahadsan yihiin mahadoo dhanna waxa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qadarkiisa iyo qadaagiisa hawshan ay ku dhacday intaa kadib dareen la cabiri karaya maaha waa dareen guri kasta iyo goob kastaba yaala waa dareen dunidu u dhag taagayso waa dareen cid kastaba ay daneynayso oo xitaa waa qadiyad dhaaftay Somaliland deegaanada afka Soomaaliga lagaga hadlo aad loogu falanqeynayo waxaan isleeyahay waa libin ama guul dhaafsiisan qofnimadeeda iyo deegaanka ka soo jeedo oo micno weyn u sameysay qiimaha qarannimada Somaliland leedahay sawirka siyaasiga Somalilandna si fiican u qurxisay waa dareenka noocaas bay abuurtay barkhad in bulshada ku dhaqan gobolka Maroodijeex yar iyo weyn haween iyo dumarba ay maanta hadalhayntaada adiga noqotay ku codeeyaan maxaad isleedahay barkhad ahaan maanta way keentay in adiga dadkoo dhani focuska ku saaraan oo ay ku codeeyaan maadaama oo waliba dadku markii lagu ololeynayay meel kasta oo kamid ah deegaanada Soomaalida mas'uuliyiintooda shacabkooda si weyn bay ku hadalhayeen waanay kugu duceynayeen xilkaas aad ku soo baxdo maxaa keenay baad isleedahay barkhad kasbashadu ma ahayn xirfad iyo xoog iyo xeelad siyaasi ah oo aan dadkii ila tartamaya aan dheerahay laakiin waxaan isleeyahay dareenkan wuxuu ku abuurmay diir dulmi oo la duminayay ayaa sabab u ahaa oo ummadda afka Soomaaliga ku wada hadashaa dareenka waxay u muujinaysay dib dhaqan oo hore u dhacday in la dhayo marka iftiinka iyo shamaca iyo dabku bartu uu ka bilaabmo in Somaliland noqoto ayay farxad gaar ah u ahayd cid kastaba marka waa dhufsanayaare dadka Soomaalida afka Soomaaliga ku hadla ay wada wadaagayeen oo ahaa in dulmi jiray iyo deyrka foosho xul la dumiyo oo ummadan dareenkood dib loo dhiso dambeyntii barkhad jaamac musharax barkhad jaamac batuun komishanka doorashooyinku wali hadda kumay dhawaaqin natiijadii adiga barkhad ahaan natiijada ka soo baxda komishanka doorashooyinka qaranka ma ku qanacsan horta qanacadu marka horeba tartan bay haydo waa barcad iyo barmadow hadduna qofku marka hore aanu diyaar u ahayn in wixii soo baxa uu ku qanco marka horeba tartan diyaar u muuhayn marka haddii aan guuleystana falillahi alhamdu adala guushi madalina rabbil alamin marka waa garsoor wixii ummadda ka soo wixii ka soo baxo waa suugana kana hor dhici maayo isna ma hadin maayo guushuna wax Ilaahay gacantiisa ku jira Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Hargeysa